baan waxaan ku soo dhawaynaynaa haddaanu nahay degmada Xilgalool waxaan ku soo dhawaynaynaa gacmo furan khudbad wanaagsan baanu ku soo dhawaynaynaa waana wada joognaa kulli saraakiishiisa oo dhan ugeedaba sharafka uu leeyahay iyo habka uu leeyahay baanu ku salaamaynaa qodobaa ugu weynaa waad ka mid ahaydeen kuwii idinka dameeyeyba inaannu marxabaysiinno weyno gacan qaadno baa qodobka ku taala inaannu ciidamada uga fuulay soo kordheerno xaaladooda u dhowaanno sidaba isu wareegsanno annagoo ino iyagana aad iyo aad inaad maantay hawshii aanu soconay aad iyo aad baan idin soo dhawaynayaa anigoo martayihii difaaca puntland aad iyo aad baan idin soo dhawaynayaa warbixintiinna iyo xaaladihiinnana waxaanu qiimaha waa haynay taliyayaashiinnii xuseen dheere iyo xayle ayaa si fiican noogu warrami jiray saacad walba aad baanu ula soconnay xaaladda aynu ku jirno laysaga warrami maayo xaalad dagaal baynu ku jirnaa cadow baa inaku soo duulay dalkeenna raba inuu qabsado kama haysanno oo xoolo kama haysanno oo xukun kuma haysanno haddii ilaah baa dadina ka dhigay ma waxaynu oggolaanaynaa inaynu gacmaha laabanno oo rukuucno miyaynu qaadanaynaa sharaftayada iyo magacayaga iyo sharafta dalkayaga xorriyadiisa waa daafacanaynaa